dubaaqadii shalay qalbigu waa dikaamayaa ee maanta waa diidnay soomaali kala dirkeed ee maanta waa diidnay soomaali kala dirkeed dooca docayniyo ma doonayno deris la cuno dooca docayniyo ma doonayno deris la dhibo farmaajo waada wadeeniyo derin u fidi farmaajo waada wadeeniyo derin u fidi dayaxa soo nuuray bulsho yahay docdaada qabo birayno dareenkeena annagu waxaan nahay ka bulsho ahaan bulshada Soomaaliyeed khaasatan bulshada Puntland khaasatan bulshada degmada Carmo runtii waxaan aad u bogaadinaynaa shirkii waqti badan ka socday magaalada Baydhabo iyo wixii laga gaaray oo guulaha ahaa oo aan filayno inay ka soo baxaan guulo lama filaana oo lagu horumaro oo dadka iyo dalka u horseeda nabad iyo baraare sidoo kale waxaan u baaqaynaa oo baaq nabadeed u direynaa walaalahayaga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho runtii waxa aad iyo aad aan u bogaadinaynaa oo u taageeraynaa madaxweynahayaga talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha kaliya ee maanta waxa aan ku faani karo haddaanu nahay Soomaali noo horseeday kaas oo aan ku xusuusan karo kula taageeraynaa in badan waxa uu noo horseeday wadada wanaagsan taasoo ah waxqabadka dhabta ah midnimada horumarka qaybihiisa kala duwan oo nooc walba leh oo maanta aanu haddaan Soomaali nahay noo ah waxa weeye iftiin noo baxay oo aan haysano ma sha Allah waxa ugu horeeya oo madaxweynahayaga aanu ku taageeraynaa oo aanu ku bogaadinaynaa ciidamada sharafta leh oo noo dhisay dalka uu daacadda u yahay dalka naga maqan sida badda Soomaaliya oo kale ee uu ku raad joogo wixii meesha xun dhigay ee waxa weeye shisheeyaha u horseeday waxaan leenahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waan ku taageersanahay وانا كود عيننا حلك أنه الله كوجا أستره إلهي أنا هلا جرب قبته إلهي هلا جرب قبته حلك ومدحونه إنه هيو يصيده ومن ماذا الصومالي وقلت يا جاي هاي إلهي هلا جرب قبته وحن لنا هاي مركو واد والله قدرتين مر لبادي مر صدحنا هلا قدرتان لنا وحن رجينا هدو دلك محمد عبد الله محمد فرماجو مر لباد كسر نقطة إنه هي أفر سنة قدامي dhalinyarada ku dhamaatay qurbaha iyo dadka yaga Soomaaliyeed inta dibadda u soo socda in anaga dalkayaga la imanayo oo loo soo shaqo tagayo oo aanu nahay dalka wadamada ugu hodansan xaweeye mucaaradka waxaan ugu baaqaynaa annaga dalka Soomaaliya waxaan ku joognaa nabad maatadayadu maanta way xasiloontahay way noo fadhidaa waxaan leenahay dalka nabadda ah iyo dadka nabadda ah burbur iyo mudaharaad iyo rafaad hanooga horseedinin horaan u soo rafaadnay hadaan nahay Soomaali horaan u soo baabaanay waxba kuma noolin kabashaan ku jiraa 30 sano baan rafaad iyo burbur ku soo jir dalkayaga iyo dadkayagu rafaad dame iyo burbur dame diyaar uma nihin kaalina kama nihin waxaan ugu baaqaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan waxa ay ku jiraan walaalahayaga mucaaradka ah ee waxa ay mucaaradayaan hadda ilaa iyo hadda anagu aanan fahmeyn inay ka waantoobaan baanu ka rajaynaynaa dadkayaga iyo dalkayaga iyo bulshadayaduna ay nabad noogu damaashaado saasaanu rajaynaynaa waxaanu leenahay ha ka waantoobeen bulshada reer Muqdisho waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan leenahay mudaharaadka leedin abaabulayo waxa ka dhalanaya dhiigbax iyo dhimasho burburkii aynu horay u soo aragnay ayaa ka dhalanaya walaalayaal ka waantoobaan leena walaalayaal ka waantooba baan leena walaalayaal nabadda ku xasilaan leena
walaalayaalow nabadda ku xasilaan leenahay nabadda ku xasila walaalayaalow wax aanana dhaqin oo aynaan dhaqan u lahayn oo cadawgeenu inuu ku weersanayo haynoo horseedin inaan leenahay haddaanu nahay bulshada reer Carmo mar labaad iyo mar saddexaad bulshada reer Muqdisho ee walaalahaya ah ee aanu u diirnaxayno waan uga digaynaa arrinta waa uga digaynaa waxaan leenahay ka waantooba nabad ku jooga nabad ku xasila maatada iyo caruurta yaan dibna loo ku horseedin baan leenahay haddaanu nahay hooyooyinka Soomaaliyeed waan ka soo horjeednaa arrinta baarlamaanka sharafta leh madaxweynaha iyaga dhammaan golaha garanaysaa ay ka kooban tahay dawladdu waxa bedelaya mid cusub inta mid cusub la helayo ayaga joogaya muran kama jiro waxaan leenahay madaxweynaheena waa ku taageeraynaa intaad joogto waa ku taageeraynay wax qabadkaagii baan kugu taageeraynaa cid la iskama jeclaado waxa la yooda ilmihiisa ma kala jeclay iyaga iskala jeclaysiin nin walba waxa lagu jeclaadaa wax qabadkiisa iyo wixii uu la yimaado iyo ummadda wuxuu ku kasbado madaxweyne waana kasbatay shucuurtayada iyo qulubtayada baa kasbatay waxa weey waa kugu diirsanay madaxweynaha kaliya ee la ogaaday inaanu madaxweyne dhaba dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa difaacanayo u soo jeeda ee wax walba u jeeda inuu yahay waa adiga waxa weeye wax kasta oo aad garanaysaa wax qabad oo aan la ankiri karin oo aad qabatay baan kugu taageeraynaa ma hebleyn karo ayadoo ay ugu horeyso hawadayadii oo aad noo soo celisay oo aan si xorriyad ah ugu maamulanayno wadalkeena ciidamadeena lagu faano oo gorgor iyo haramcad iyo danab iyo wax loo kala garan waayay baa la yiraahdo oo cirkiga dhulka saa u biibayo meeshii loo diraba ka soo jawaabayo guul baan leenahay cadawga iyagii baxnahayaga محمد عبد الله فرماجو إلهي خير بدن إن بدن هسيو سببتها ومدحوينها نبري إن دتك الشيء كوجو قدما ومسير كاجد حجلا إلا يرى هذا بحل أورنكرو وانك نبري وانك ناسمي إذا ما أنا كفاني كبره waxaan halkan iyagan ugu hambalyeynaa ciidamada Soomaaliya meel kasta ha joogeen ee u taagan har iyo habeen difaaca dalka u taagan oo har iyo habeen cadawga naga waabiyay oo kiyada nagu soo sifaadaysa naga celiyay ilaahay meel joogan baynu garabkooda galo iyagana dal haduusan ciidan lahayn meel ma tago waxna iskama celiyo ilaahay ma hadaa ka gaarto ciidamada iyada waa ku faanaa har iyo habeenna waxaan leenahay ilaahay idin garab galo ilaahayna ha idin la qabto hawsha aad haysaan hawl culus baa yiri waa la siinayaa Soomaaliya iyo Kenya waa la idin kala dabqaaday 15 bari aan waxba ka harin in la yiraahdo mudaharaad baan sameynaa taa waxaan in loogu yeelnaa shisheeyaha Kenyada nagu soo duusho lagu siinayo dhulkayaga iyo badda qayb kamid ah taana ma ogolaan doono taa ka kamid ah dhulkayaga inay Kenya qaadato ciyaar ku qaadato waxaanu ogolahay oo raadinayna waxay tahay inay Soomaali mid ah iyo Soomaali mid aan raadinayna oo mid qura waxaan raadinaynaa taariikhdii aan lahaan jiray inaan soo ceshano libaxyada Afrika annagoo joogna joogna xafladaas rag iyo dumar saqiir iyo kabiir annagoo facaas maanta waxaan u taaganaa difaaca badayada baan u taaganaa inaan taa kala qaadan Kenya ayaan qaadan madaxweynaha ayagan waxaan leenahay hanjabin ku taagno inta taa ka dhula naga maqan tahay annana waa kugu taaganaa bulshadaadii bahdaadii baan leenahay waxaan kaloo leenahay madaxdayada annaga Puntland iyo kulligoodba waxaan leenahay in meesha iska qaadno doorasho aan u dareero madaxweynaha ayaga waxaan ka codsanaynaa inuu doorasho noo dareeriyo oo dalka ka saaro burburka iyo baaba uu ku socdo baan ka rajaynaynaa waxaanu leenahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani dalka ka qabo burburka iyo hoogu ku socday halaaga ku socdo meesha laga soo qaado 30 sano ka hor ayaana ku celin maantana horumar baynu ku jirnaa horumar aan aadno higsiga iyo hanku iyo in ka jabin haysata Soomaali israacday midigtays haysata sharkii waa guuray shuushkiina waa ka baxay farmaajo waa damal harweyn oo la wada harsado farmaajaan doonaynaa oo nahay diyaar
farmaajaan doonaynaa oo u nahay diyaar dalka doonaya shacabka u diyaarsanaa dalka doonaya shacabka u diyaarsanaa cadowga kugu wiirsan weliga ka gacan saray cadowga kugu wiirsan weliga ka gacan saray sarayayna noqoto sidii aabbahaasiyaad sarayayna noqoto sidii aabbahaasiyaad ilaahow daa'imow noogu celi mar kale amiin